waxaa garoonka diyaaraduhu kana haadaan kana duulaan ee garaadwaal ee magaalada Jigjiga lagu soo dhaweeyay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo ah ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi waxaana halkaas ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha mudane Cabdirasaaq Sayid boqolaal kamid ah shacab ku nool magaalada Jigjiga kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka Soomaalida madax dhaqameed soo dhaweyn kadibna waxa loo galbiyay qolka nasashada garoonka diyaaradaha ee garaadwaal ee magaalada Jigjiga waxaana ugu horeynta halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha mudane Cabdirasaaq Sayid in aan soo dhaweyno garoonkana aan ka soo qaadno ugaaskeena qaaliga ahaa ugaas Cabdirashiid oo in muddo ahaba socdaal ugu maqnaa magaalada Addis Ababa dana khaas ahaan ugu maqnaa soo dhaweyntiisu anaga maanta waxay noo kordhinaysaa sharaf iyo wanaag ayay noo soo kordhinaysaa ugaaskana waxaan leenahay ugaas ku soo dhawow dadkii iyo deegaankii aad u ahayd hoggaanka dhaqanka ee ugaaska aad u ahayd oo ahaa magaalada Jigjiga iyo dadka ku noolba ugaasyada waaweyn iyo hoggaaminta dhaqanka ee waaweyn dowladdeegaanka Soomaalida xurmada looga hayo sida sharafta leh loo soo dhaweeyo loona qadariyo ayaad ka mid tahay bagaad noogu timid nabad adiga oo ku soo laabtay magaaladaadii dadkaagii ku soo dhawow ayaan ku leenahay magaalada Jigjiga insha Allah waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo imaanshahaagu inuu wax badan oo tarahayo danaha wadanka iyo talooyinka wadankana in fikirkaaga iyo aqligaaga loo baahan yahay geesta kale waxa halkaas ka hadlay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo Xuseen muddooyinkii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya aad iyo aad baad u mahadsantahay wasiir waan ku faraxsanahay dhammaan inta dadweynaha iyo ma arkaysa madaxda dawladda iyo dhammaan inta ay soo dhaweysay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa dhulkaygii waa dadkaygii inaan u imaado mar walba hawlaha kulley waxaan ku maqnaa ummadeena Soomaaliyeed ee dawlad deegaankeena Soomaaliyeed waxyaabo badan oo ma arkaysaan xagga Addis Ababa ka qabtay oo ummadeena dan u ah ayuun baan ka shaqeynayay shirar badan iyo hawlo badan aan ka qayb galay marka wixii ummadeena anfacayo un baan u joogay halka imakana dawladeena madaxweynaha dawladeena ayaa aan wada kulmi doonaa oo hadii Ilaahay raa wax khayr la baan rajaynaynaa dadkeena oo nabada ayay Ilaahay keenay dhulkeena oo nabada marka insha Allah kulley wada shaqeyn buuxda ayuun baan rajaynaynaa in wax walba aan wada jirku wada shaqeyno ummadeena Soomaaliyeed dawladeena iyo dadkeena iyo shacabkeena baan ugu yimiday aad iyo aad baad mahadsantihiin waa farxad weyn bay tahay runtii inaan halkan isku imaano garaadwaal airport adiga soo dhaweysaan intaas kadib ugaaska waxa loo soo galbiyay xarunta dawlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga gaar ahaan hoyga uu ka degan yahay magaalada Jigjiga Cabdiraxmaan Buux telefishinka cable xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida